kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa basaasiin xogaa u gudbinayay Israa'iil oo lagu qabtay gudaha dalka Iiraan hadaba tiradooda waa imisa sideese lagu ogaaday muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doonaa waxa sidoo kale intaad muuqaalka daawanayso ku soo gudbin doona Iiraan oo mar kale weeraro culus ka fudisay gudaha dalka Israa'iil qasaaraha dhabta ka dhashay ayaa halkan kugu la wadaagi doona wadamo kamid ah qaliidka Carabtana waxa xilligan ka soo yeeraysa qiilanaan xooggan iyagoo dalbanaya in madaxweynaha ee dalka Mareykanka Donald Trump uu joojiyo dagaalka ka soconaya bariga dhexe maxaa ka soo kordhay xilligan xaaladda bariga dhexe sidoo kale dilka ee ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu faahfaahin ka soo baxaya ayaa halkan kugu soo gudbin doona iyo sidoo kale macluumaad hor leh oo soo gudbisay Iiraan hadii ay taa markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkan furso ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahay muuqaalkeena share garay laakiin soo soo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno 24 saac ee la soo dhaafay waxa si aad ah baraha bulshada u qabsaday in duqeyn lagu dilay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoona ay sii kordhayaan tuhunada laga qabo in uu geeriyooday amaba uu baqtiyay wararka ka soo baxaya gudaha dalka Iiraan jaraa'idiyadana ay qorayaan ayaa waxay tilmaamayaan in ay duqeyn ay ku dileen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoo markii hore arintaani lagu tilmaamayay mid been abuur ah iyo sidoo kale ku tarukuteen ay ku faanayso Iiraan ayaa markaana waxa soo baxaya cadeemo hor leh oo lagu baahinayo baraha bulshada waxaana cadeemahaasi kamid ah in ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu laga waayay kulanka golaha amniga ee uu ka soo muuqan jiray iyadoona kursiga kulanka golaha amniga uu shir gudoomin jiray ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu booskiisa uu fadhiyay shakhsi kale waxa sidoo kale muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada isagoo qudbeynaya laga soo dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu lagu sheegay inuu ahaa mid lagu sameeyay aalada macmalka waxaana muuqaalka sidoo kale lagu arkayay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo marna gacmihiisa ay yeelanayaan 5 farood halka mararka qaana lagu arkayo ilaa 6 farood taasi oo cadeynaysa in muuqaalkaasi uu yahay aalada macmalka ay loo yaqaano iyadoo Iiraan ay ku adkeysanayso in ay duqeyn ay ku dishay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu ma jirto ilaa hadda cadeemo kale oo ka baxsan oo ay qorayaan Iiraan ku aadan dilka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu waxaana sidoo kale Israa'iil sidoo kale Mareykanka ba ay beeninayaan in dilkaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil uu yahay mid been ah isla markaana Iiraan ay ku faanayso inay u arguday hogaamiyihii ugu sareeyay Hezbollah Ayatollah Ali Khamenei kaasoo ay sheegeen inay duqeyn ay ku dileen Iiraan ayaa hore u sheegtay inay u argudayso hogaamiyaha ugu sareeyay dalkaasi Iiraan Ayatollah Ali Khamenei waxaana sidoo kale ay sheegtay in xilligan ay u arguday isla markaana ay meel cad ay kaga tilaabsatay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoo hore loo sheegay in Israa'iil ay duqeyn Iiraan ay duqeymo la bartilmaameysatay guriga ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil iyadoona loo maleynayo in uu halkaasi uu ku baqtiyay ra'iisul wasaaraha dalka Yahuuda inkastoo faahfaahin kale ama kale warar madax banaan ay soo baxay aysan sheegeen dilka ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil balse muuqaalada iyo sidoo kale cadeemaha la soo bandhigayo iyo gogolaha ama bashararka uu ka maqan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa dadka tuhun ku beertay waxa sidoo kale dadka shaki galiyay wiil uu dhalay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo bartiisa X si maalinla ugu soo qori jiray warbixino iyadoona maalintii ugu yaraan uu soo dhigi jiray 30 ilaa 40 xoga ah ayaa 5tii maalin ee la soo dhaafay laga waayay bartiisa inuu ku soo daawacay wax xog ah taas oo la xiriirinayo inuu la murugeysan yahay dilka aabihiisa
Benjamin Netanyahu wixii xogo ay ku soo kordhay ee la xiriira ee dilkan ee ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil xogaha ka soo baxay warbaahin kale hadii ay wax ka qoraan muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa dhinaca kalena waxa banaanbax xoogan ka dhacay Gaza iyadoo halkaasi banaanbax ay iskugu soo baxeen muwaadiniinta u dhalatay dalkaasi Gaza iyagoo ku faraxsan amaba ay sheegayeen in ay ku faraxsan yihiin dilka ee ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ee Benjamin Netanyahu inkastoo xogo madax banaan aysan jirin oo cadeynaya in la dilay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil hadii aan u soo laabanana Iran mar kale waxay duqeymo culus ay ka fulisay gudaha dalkaasi Israa'iil iyadoo duqeymaheeda Iran ay laba jibaartay isla markaana ay bartilmaameedsanayso goobaha ugu muhiimsan ee Israa'iil sidoo kale bariga dhexe waxaana sidoo kale Iran ay bartilmaameed ay ka fulisay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo halkaasi lagu arkayay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ololka iyo qiica hawada isku sii shareerayo iyadoo la sheegay in Iran ay bartilmaameedsatay keed shidaal oo ah Israa'iil waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in halkaasi dabka uu ku baaxay qaybo fara badan oo hor leh qasaarahana uu yahay mid ka sii daraya xaaladda bariga dhexena waxay noqotay mid maalinta ka dambeysa ka sii daraysa iyadoona dagaalka uu noqonaya mid wajh cusub uu yeelanayo qasaarahana uu sii kordhayo dagaalka ka soconaya bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada qaliijka carabta waxa uu galay maalinkiisii 16aad iyadoona dagaalku uu yahay mid aan kala joogsi lahayn Iran ay la soo baxayso hubkeedii nooca ugu dambeeyay balastikada iyo sidoo kale diyaaradaheeda nooca aan duuliyaha lahayn Iran waxay sidoo kale ay maanta carabka ay ku dhufatay in qaybo kamid ah wadamada qaliijka carabta duqeymihii laga fuliyay aysan shaqo ku lahayn balse ay jiraan gacmo kale oo ka dhex faa'iideysanaya dagaalka ka soconaya bariga dhexe isla markaana eedaha dusha laga saarayo Iran waxayna cadeysay in qaar kamid ah wadamada dariska la ah aysan ku xadgudbin madax banaanidooda balse ay sheegtay in kaliya ay duqeysay in wadamada ee saldhiga ee military ugu yaalay gudaha dalkaasi ee Mareykanka kuwaas oo duqeymaha looga soo qaaday Iran balse waxay sheegtay Iran inay marnaba aysan ku xadgudbi doonin wadamada dariska la ah inay ilaalinayso madax banaanidooda markana hadii aan ku soo gabagabeeyo dhinaca kalena madaxa amniga qaranka ee Iran ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay og tahay oo ay maqashay qorsho lagu doonayo in lagu fulinayo weerar la mid ah ama midkii dhacay 11 September kadibna mas'uuliyadda weerarkaasi loo xambaariyay Iran waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta in Iran ay ka soo horjeedo falan noocan oo kale oo lagu tilmaamay mashruuc argagixiso isla markaana Tehran aysan colaad la lahayn shacabka Mareykanka waxaa sidoo kale lagu sheegay in amaba hadalkan uu ku soo aadaya xilli dagaalka ka soconaya bariga dhexe u dhaxeeya Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iran uu sii xoogeystay isla markaana uu galay maalinkiisii 16aad hadda dhameysata muuqaalkan aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada waxa kaaga soo baxay aragtidaadu waa inoo muhiim hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhagan balaalkana furus ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga